wiilkan hal mar wuxuu sheegayaa been aad iyo aad u yar balse isla markiiba sankiisa soo dheeraanaya gabadhan oo dhankiisa fadhidan way la yaabaysaa isagoo sankiisa sii dheeraanaya ugu dambeyn sankiisa aad u dheeraado wax walba meesha saaran oo u tirtiro sankiisa ayaa noqda sida ushi oo kale adigana daawadahayga ilaabin muuqaalkana like noo saar kaasi hamar guriga waxa soo galaa shimbiro fara badan ayagoo sankiisa wax ka cunaya wiilkan waxa sameeyay ninkan wuxuuna ka sameeyay markiis hore geedkan isagoo qabtay kadibna geedkan jarjaray si uu ugu dhigo qof caadi ah oo kale dibna uu sameeyay wuxuuna ka dhigay wiilkan yar wuxuu ku takhasusay farshaxanka dadku wuxuu sameeyay jiray farshaxanada iyo wejiyada markaan wuxuu arkay waxyaabo uu weligiis arkan oo cajiib ah wiilkan ayuuna shaqadeynaya welibana isagoo sidoo kale uu sameeyay indho san dhigo af waxyaabo fara badan si odagu wuxuu bilaabay wiilkan wax u sheegay wiilkaas markii uu dhawaaqay welibana isagoo dhahay baaba ayaa naxay welibana isagoo soo carray oo dhahay wiilka aab ayuu dhahay dadkii darskiisa ama jaarkiisa dhamaan way isku soo baxaan waxay ku dhahay maxaa ku dhacay isaga wuxuu ku qilnaa aab ayuu dhahay beentiis waa aab ayuu dhahay kaas kadib odaygu wuxuu isku dayay wiilka inuu bar qaabka loo socdo inuu bar sidoo kale wuxuu isku dayay waxyaabo fara badan in wiilkan yar uu barsi oo ugu dhig wiil xariif ah markaas wiilka ka soo carray odayga isagana uu soo daba carray oo kama harayo adigana daawada marka la ilaawin muuqaalka in like noo saarto kaas wiilka soo bursanay eegan kadibna soo carray wuxuu soo xiraya qolkaani isagoo meeshaan iska seexanay odayga ayaa isla markii uu imaanay welibana isagoo guriga soo gargaraacay maxaa ku dhacay irdiga furo inuu ku dhahaya wiilka markaan isagoo rabo inuu soo dhaqdhaqaaqo kadibna irdiga furo isla markii lugu ayaa ka gubtay ayaan fikiray markaan wiilka wuxuu sameeyay lugu kale oo cajiib ah